Hello everyone, waa idin salaamay. Magacaygu waa Qalbos University. Haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe iyo share channelka waa noo dhiirigelin mahadsanid. Maanta waxaan isla eegaynaa intrigii baxay iyo sida ku baxay iyo jeedina suuqa biaska. Inkastoo biaskan isniintii soo diray oo uu lahaa haddana waa macquul inuu buy noqdo amba sell noqdo sababtoo ah suuqu waa unique. DXY marka hore waxay ka timi meel fair value gaabiyo waxay ka timi daily waxaa la tegay meel fair value gaabo weekly la tegay markaas loo kasoo sargareynay haddana wuxuu yimi OP daily uu yimi OP daily oo ka reaction ka bixiyay in 3-4 ka waxa macquulana in khamiisna la soo qaado macquula iyo jimcaha in hayga la soo qaado dhinaca markaas sidii jimcihii hore seriously waxay qaaday weekly low inay buy tonight taasna macquul sababtoo ah imika buyskin waa buy oo DXY meel OP joogtaa meel discount way joogtaa markaas sabab aan ku buy gareyno aan ku sell gareyno ma jirto suuqa unique waxa laga yaabaa inuu weekly haygana uu soo qaado amba la joogo meel weyn la joogo fair value weekly oo sell noqoto inkastoo ay tahay meel discount ah ana macquul in wax kasoo dhacaan ka intrigii maanta baxay iyaga waxay qaaday after in tole haygeedii bay qaaday inagii imika maanta in USD soo sell gareynay USD waxay qaaday USD daily low bay qaaday inagii buy gareynay inagii dhowr 30 bib ka helay EP-gani inay cunay imi haddii maaragtay isniin thalathada konka soo gubtid amba trades xanguda suuqa qasbad qolay ku dhaafan jimca iyo khamiis halka run trade quruxda badnaa bixila markaas suuqan stage weegi laba tiram saddex tirar baa ku baxaya waxa ka cun dadre maalin kasta bandhisay maalin kasta oo qasbaya suuqada waa muddo maaha dulqaad buu kaaga baahan yahay markaan isla eegno euro USD waxay joogtay waxay ka timi meel weekly OP ka timi iyo haddana waxay ka kacday meel weekly fair value gaaba oo inagii maalinta ka buy gareynay halkan waxa dhacay standard waxa dhacay trade candle baa dhacay oo wixii candle sidan waxa lagu gartaa inay suuqa inuu sell aadi rabo yar basaro sell loo celinaya dan jadi saxdeed baa la keenayaa OP waxay noo joogtaa meel OP oo daily noo joogtaa iyo meel fair value weekly oo macquul salka tagno sababtoo ah meel premium noo joogtaa macquul in meel discount la imaado weekly OP in jimcaha la qaado in buy loto ama weekly high in la qaado labadaas waa macquul markaas suuqa waa unique si kastaba ma garanaysaa waa inaad u akhrisaa waa suuqan uga falcelishaa dad rahan ma suuya marka waxay isla eegnaa trade-keeni baxay maanta euro USD bay isla eegnaa iyo sida ku baxay marka hore suuq wuxuu noo qaaday previous daily low marka haddii previous daily low lagu qaado ma baahnid in ASEAN lowna lagu qaado ma leela fahmi haddii previous daily low lagu qaado ma baahnid in ASEAN lowgiisa lagu qaado sababtoo ah ASEAN-kii baa qaaday previous daily low then ASEAN low baa la qaaday oo halkan waa steady inkastoo ilaahan uu ka furmay suuqu inkuu isbedelay time-ku oo 9 subaxnimo furmaa lana 9 subaxnimo furmaa marka halkan waxa ka dhacay PPR baa ka dhacay iyadana waa calaamad kalsooni oo nasiisinaysa dan waxa ka dhacay shift baa ka dhacay oo sadalkan wala jeedaan waa kan wixii liquid total la qaaday oo kan shiftiga noo dhacay fair value gaabka iyadana PPR kii halkan yaalay ila saddexdan labadan imbalance fair value gaab isku beegmay trade-ka waxaan helaynaa ilaa iyo 30 bib meelahaasaan kaga hadhay meelahan baan dhigtay dawey waxaan doonayay ilaa 60 bib baan doonayay laakiin wuxuu gaadhay
firsadu wax noocaas ku socday iyadana waa tan markaan dhigto fair value gapkayga doctor displacementiga waa tan baxday shiftiga samaysay midkan halkan oo kalena halkan waxay qaaday buy side bay qaaday shifti oo midna bartan ka dhacay fair value ga traderkaasina imka waa active wadina wixii way helay we don't care wixii kala dhaca taa fududeysay 330 bib nadiif ah laakiin waxaan doonayay 730 bib meelahaasaan doonayay sababtoo ah meelahaas iga galay oo suuq markiiba marka kaa maray ma galo ina reaction arkaa marka xaggaasaan ka galay meelaha weyn bariiska dushiisaan ka galay taarikaagu 30 bib buu ahaa 30 bib ka qaada barada iskaga bax suuqan kale meelahan baa liquidity kaa xigaa kani waxaan waa easy marka halkan waxaa qaaday sell liquidity bay qaaday waxaan iniya waa dad education ka haysato mindsetkaaga lagaa dhisay mantar saxa haysatid suuqa waa cunaa brada qasaabays arki maysaan sababtoo ha dulqaad stage baa lagu leeyahay brada waxani waa business like business loo dhaqan maalinka si trade ma baxo magarad maalinka si trade ma baxo wigi 3 trade ama 2 trade baa ku baxaya calafkaaga ka cun sleep bro asxaabtaas iskala baashaal adoo making money sameynaya asxaabtaada iskala baashaal ila raaxayso bro aniga ifta waxa ugu necbay in qof loo shaqeeyo san la yidhaa brada no magarate markaa saaxiibayaal waxaan waa easy wallahi dad baa kasi badan samaysaan oo hal istaraatiijiyad ku dhigtaan hal session ku dhigtaan hal risk management ku dhigtaan waxaan waa ka midho dhalinaysaa niyo magarate waxna waa old version waxna waa new version ever old version bay ahayn the mentorship 2020 brother 23 ACT mentorship 2020 baad odayga halkan casharihiisa waa daawan kartaa waa free kon ACT kaliya ku qor halkan tago university halba ugu qoran playstiyada tag hoos u soco mentorship 2020 ga 41 video daawo halkan iyadana playstiyada waxaad daawanaysaa markaad kan soo daawo kan ku bilow market maker primer isagana waa 24 cashar dad doonayso wada gaabana waxa jira dad badan oo mentorship bixiya baa jira sida adku oo kale in yar kale aan saaxiibnahay anoo kale waan bixiyaa dadkaas way jiraan saaxiibayaal khayr bay ni rajinaya dhammaantiinba